Asalaamu calaykum asxaabi isku soo noqosho wanaagsan halka aad igala socotaan waa Dr. Xaashi Network aniguna waa Dr. Xaashi. Haddaad hore noola joogteen waa ku mahadsantihiin. Haddaad nagu cusubtihiinna soo dhowaada channelkan. Inta badan waxaan uga hadlaa arrimaha la xiriira caafimaadka iyo waxbarashada. Videogana waa videogii labaad oo introduction ah. Waxaana uga hadli doonaa experiencegayga ama khibradeydii oo aan kala kulmay iyo waxyaalaha aan kala kulmay markii aan wax ka baranayay waddanka Canada, heerarkii kala duwanaa, sectionada ay kala lahayd iyo qaybaha. Video dambaan si details uga hadli doonaa, laakiin videogan waa si guud oo maaragtay background educationkayga aan uga hadli doono. Aan idinkugu bilaabay school waxaan ka bilaabay waddanka Canada. Waxaan soo galay anigu sanadkii 2012 bishiisii January. Iskuulkii ugu horreeyana waxaan bilaabay isla sanadkaas bishiisii February. Dugsigii sare oo waxa loo yaqaano upgrade high school oo maaragtay upgrading oo high school ah. Waqtigaas aaday u adkeed in adoo aan upgrading iyo soo samayn ama shahaadooyin meelo kale laga keenay in la bedelaa way adkeed, oo si caadiyanba way u adkeed. Gaar ahaan waddanka Soomaaliya waraaqaha lagala imaanaya way adkeed. Video kale aan kugu sharaxi doonaa wax badan hadda isbedelay oo arrintu sidii hore maahan, laakiin xilligaas way adkeed. Marka iskuulo badan oo la xiriiray iyo collegean la xiriiray waxaa maaragtay la isku wada raacay high school diploma la-aanteedina waxii socay la arag. Halkaas ayaan ka bilaabay bishii February. Waxaan jeclaa afarteedii inay ahayd. Intaan bishii February la gaarin waxaan aaday assessment ama college oo maaragtay magaalada Toronto ku yaalo oo dadka heerku ay joogaan lagu soo assess gareeyo, kadibna warqad baggage ah inta la diraa oo maaragtay scorekaagii iyo waxyaalahaagii iyo fasalka aad u qalanto ay ku yaalaan. Waxaa loo dirayaa maaragtay qaybta waxbarashada oo Ontario. Markii aad tagto informationkaagii iyo iskuul kastoo iska diiwaan gelido xogtaadii waa kaa soo horeyda heerka aad joogto iyo waxa dhan waa la ogyahay. Iskuulku xilligaas waqtigaas hadda waxyaaba kale isbedelay ayaa jira, laakiin iskuulku xilligaas exam ayagu ay leeyihiin kaama qaadayn. Assessmentigaas loo soo diray oo lagu soo assess gareeyay iyo meesha aad u qalanto warqadaas keliya unbay ay wax ku aqbalayeen. Marka halkaas aan kasoo bilaabay assessmentigii aan sameeyay intii bishii January ba lagu dhex jiray oo isla bishii aan waddanka soo galay ahayd. Dabadeetana February 4teedii ayaan jeclahay oo iskuulaadku ay furmayeen oo semesterkii horena imtixaanaadkiisii laga soo gudbo semesterkii winterka uu furmayay. Markaas ayaan bilaabay iskuul la yiraahdo Kipling College oo institute oo Toronto ku yaala aan ka bilaabay. Iskuulkaas waa iskuul maaragtay standard oo secondary schoolka ama high schoolka. Waan xilligaas ma garanaysaa waan yaraayo hadda. Ninkan waxa waaye garku sii caddaanayo ma aanan ahayn waqti hore ahayd. Marka iskuulkaas oo haddii ilaahay kuu roon yahay oo caruurtu dhigato, basically iskuulkaas caruurtu dhigata ayaa la igeeyey. Caqabado badan aan kala kulmay. Dadka xilligaa dhiganayay oo u badnaa iskuulkaas 90% aan dhihi karnaa qof dhifaad arkeyd inuu waddan kale ka yimid oo international student oo kale uu yahay ama uu English second languagekiisa uu yahay. Markaadna dadkii isku system wax ku soo baran, ayaguna 12 sano 10 sano 6 sano 8 sano ay soo wadeen oo systemka kusoo jireen, adigana dhexda lagaaga soo tuuro adoo qaabka ay wax u bartaan, qaabka ay wax u qoraan, systemkii iyo wixii oo dhan adoon fahansanayn markii dhexda lagaaga soo tuuro. Caqabado badan baa iska jira. Caqabadahaasaan la kulmay. Dad markaas aaday u yaraayeen oo xilligaygaas dib dhowr qof waa iska helna, laakiin aaday u yaraayeen dad sidoo kale meelahaas oo maaragtay Soomaaliya iyo Afrikada inteeda kaleba ka yimid oo high school bilaabay. Marka caqabadaha ugu weyn oo xilligaasaan la kulmo waxay ahayd luuqadii. Keliya luuqadii ma ahayn, koorsooyinka annaga markaan Soomaaliya aan joognay aan gadaalidin celiyay. Koley dadka reer Muqdisho way garanayaan. Anigu iskuulkii Ablaal aan dhiganayay hoose dhexe iyo saraba qaybtiisii Huruwaa la dhihi jiray.
halkaanaan ka salaamaya reer Ablaal hadda iga daawanayaan. Iskuulkaasaan anigu dhiganayay xilligii hataa ay maaragta xaaladdu adkaatay oo ciidamada Etoobiya ay soo galeen waddanka oo magaalada kala cararku ka jiray oo hadba meel la fariisanayay oo hadba store lagu hoos dhiganayay. Waqtiyada xaaladahaas adkaa oo dhan waan joogay. Sidoo kale dadkii bareefadleyda ahaa oo luuqadda ingiriiska bareefadyada ka bara jiray ayaan ahaa oo iska jeclaa hadba bareefadyo aadi jiray. waxaana u badnaa bareefad isaguna laba dhagax ku yaalay oo Alabaadir la dhihi jiray. inuu hadda shaqeeyeen kala maaqaan waqti badana kasoo wareegatay. bareefadyadaas dadkii dhigayay oo xoogaa wax u bilownaayeen oo luuqadda ingiriisiga wax kasoo bartayaan ahaa. laakiin markii halkan la yimaado standardkii waxa lagu baranayay iyo inaad la qabsata oo systemkii uu kugu adkaaha, fahamkii uu kugu jiraa oo luuqadii waad soo baratay, wixii aad soo baratayna waa sax. marka haddaad daaweydiin oo aad halkan videogan aad daaweydood Soomaaliya joogtood isleedahay bareefadyadan iyo waxaan aad dhigato lacagta lagaaga qaataa wax shaqeeya oo adduunka ka shaqeeya mise waa wax iska waqti dhumisa, waxaad ogaataa inaysan waqti dhumis ahayn, maalin aan maanta ahayn inay ku anfacdo ay u badan tahay. marka qofka siroga oo aan weligii soo dhigan way ku adkaahaydaa dhinacna inuu dhaqaajiyo. laakiin qofkii wixii soo dhigtay laakiin system kala duwan kusoo bartay oon heerkii la rabay gaarsiisnayn haddiiba horuu kala soo qabsanaya. marka intaas waxay ahayd inaan wax yar gadaal idinkugu celiyo inaanan macnaha background educationkaygu inuu Soomaaliya ahaa oo aan wax kasoo baranayay Soomaaliya. halkaana marka systemkii ay u cusbaaday oo maaragta markaadan iskuolkii friend school ahayn, dad wax isla akhrisatiin ku lahayn, systemka wax lagugu dhigaya uu ka duwan yahay kii hore. xagga waxaa naloo dhigi jiray idugu 7 maado 8 maado maalintii 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo hal saacaa lagu jiray xiisada. halkan sidaas maahan. maalintii oo dhan waxa ugu badan qaadan kartaa waa 3 ilaa 4 maado wey waxaad qaadan kartaa. xiisadeedu waa dhaadheer yihiin, waa saacadii bar 2 saac wey xiisaduhu. isla galaaska dhexdiisa homework lagu bixinaya ama assignment lagu bixinaya in galaas oo meesha looga shaqeyhayo. scorekii aad meeshaas ka keentaa lagu diiwaan gelinaya oo systemka kuu galaya. maahan intaad gurigii u qaadato homework kasoo shaqeyda. homeworkna waa jira oo dad kala soo shaqeeyaan oo caawinaad raadsato iyo chance lagu siin maayo. marka meesha dhexdeeda qayb ahoo looga shaqeyhaya jirta. marka haddaad maalin walba score hooseeya ka qaadato oo si kastoo homeworkii guriga ugu soo dadaasho, haddaad iskuulkii dhexdiisa maalin walba score hoose iyo kuwiisyadii degdeg ahaa iyo wixii hoosta layska soo gelinaya haddaad score hoose ka qaadato xaaladdu way adkaanaysaa. marka waxaa kaloo xaaladda adkaynaya information la-aan. markaadan xog fiican hayn oo aadan maaragta xog fiican systemka ka hayn oo aadan meelaha laga bilaabo iyo maaragta aadan aqoon, waxaa laga yaabaa in galaas aadan u qalmin lagu geeyo. runtii galaas aad u hooseeya laygeeya. sababtuna waxay ahayd refreshment maanan samayn oo wax maaragta xisaabtii iyo gadaal uguma laaban oo haddii ilaahay kuu rooyay ingiriiskii iyo wax ma soo qorqorin oo wax ma soo daadaawan sida baaragraafyadii loo qoro. iyo marka anoo waxba iiga diyaarsanayn assessment yaa la galaa. waa wacday, waa bokintay, waa tegay, waa iska soo fadhiista. warqadaha hoosta layga soo geliyey. buug dhanaad akhrinaysaa oo intaas aaseeya dhanaad akhriya. kadibna waa comprehension haddaad fahanta su-aalaad ka jawaabaya. kadib structure lagu siihaa, baaragraaf qoraa lagu leeyahay, waxaan ka hadal, topic ka hadal, su-aashaan iyo su-aashaana lagu weydiinayaa. aasaya lagu dhiibayaa. annaga systemkayga ama magac xataa aasay leeraada maanan aqoon waxa uu yahay oo baaragraafyo badan oo qoraal oo topic dhan oo israacsan oo hal meel ku conclude garoobaya. waxaasun systemka nooguma jirin. marka taas waxay keentay inaanan markaan imtixaankii galo waxyaalaha aan hadda dadka ka wacyigeliyo oo dhalinyarada aan markay galayaan imtixaanaadka noocaas oo kale sida la isugu diyaariyo. aqoontii waad leedahay laakiin wax yaroo refreshment ayaad u baahantahay si aad score fiican u keento. marka yanaan warka idinku daalina meel aada u hooseyda oo ESL wax la yiraahdo waa isla high schoolkii laakiin maadooyinkii aan rabay aan la ii bilaabin oo jaamacaduhu ay iga rabeen oo jaamacad ku geli lahaa waqti dheer ay ugu qaadaydo alaygeey. marka 2-3 asbuuc markaan xoogaa ku wareersanaa systemkii waa fahmay. canjalada waaweynaan soo gatay, buugaagan soo iibsaday, librarigan waqti geliyey, wixii inaan dadaalaan isku dayay. xisaabaadkii galaasyadii xisaabaadka ahayd iyo meelo fiican inaan saarsaarayo markay arkeen oo aan aada u halgamayo. macallimiintii 2 bilood kadib way bootiyeen oo waxay yidhahdaan misplace ataa galaaskii kuu qalmay maahan,
waa inaad markaas waxaan joogaa adigu 9 miya wax saas ama grade 10 meelahaasaan joogaa waxa loo yaqaano form 1 iyo meeluu ka bilaabay hore la iisii gudbiyey kii kaloo laygeeya haddana laiga sii gudbiyo layidhi kana uma qalantid ugu dambeyntii grade 11ka waxa la yidhahdo fasalka annagana aan u naqaano form 3ga u naqaanaa 5tii bilood ugu horreydaba iskuulka laygeeyey anoo weli la daala dhacaya laakiin ay arkeen sidaan wax u qoraayo fahamkayga guud waxa uu yahay sidaan ugu dadaalayo inaan mature studente ahay oo maaragtay ileen high schoolka dadka markaas ila dhiganaya 14 jiraha ku jiro oo hadda kasoo baxay dugsi hoose kasoo baxay oo nan xataa isku ejahayna ku jira marka mar walba fahamkaagii uu kasii fiicnaanaya dadkaas iyo dadaalkaagii iyo sababtaad meesha u timid iyo waxaad u joogto iyo waxaad u dhigaydaa taqaana marka aad maaragtay adigu aad adhaltita marka waa laysii gudbiyey marka adigu sanad markaan ku jiray aan haddana xog kala soo helay oo inaan iskuulkan waqti dheer igu qaaday inaan shahaado ka qaato waxaan soo ogaaday inay jiraan wax la yidhahdo adult high school oona markaas fahansanayn adult high schoolkiaan soo ogaaday kan intuu 3 sano igu qaado lahayd iyo 2 sano igu qaado lahayd inaan sanadba ka yar ku gabangabay karaan soo ogaaday maalintii dambaan boorsadeyda ka qaatay waa 2013 markaas adigu bishii aan galay bisheedii kale aan ka qaatay anoo xoogaa iskooroo fiican haysta oo maadooyinka aan qaatana ay fiican yihiin laakiin grade 12 maadooyinkii form 4ka uu jaamacad ku aadi lahaa aan weli gaarin adult high school Brantford baa la yidhahdaa dadka Toronto degan way yaqaanaan kaasaan galay markaas oo Kiblan waa kasoo guuray kaas waxa waaye 2 biloodba 3 galaasaad dhammaynaysaa ama 3 galaasaad 2 biloodba dhammaynaysaa bes marka 2014kii aduu sanad kadib ay maaragtay credit-kii iyo wixii loogu talagalay la yiri waa diyaar anaga grade 12kii waa gaartay wixii jaamacaddu iga rabeen wixii kaloo lagu kakabayana maadooyinkii aan Soomaaliya kusoo dhigtay geography hadday ahayd history hadday ahayd waxyaalahaas la yiri foomkan soo buuxi carabi wixii aad ka taqaanay foomkan soo buuxi maadooyinkii compulsory-ga ahaa ama waajibka ahaa foundation-ka ahaa maadaama aan dhammaystiray oo grade 12ka ahayoo mathematics law calculus iyo advanced functions iyo chemistry iyo biology iyo physics iyo maadooyinkii adkaa waaweynaa markaan dhameeyay wixii yaryaraa oo dhan waa lagu daba daray gobolkan Ontario 30 credit camal looga baahan yahay qofku inuu shahaadada high schoolka u qaato adigu 20 anaa keensadayba intii aan Kiblan iskuulkii hore joogay iyo intii aan iskuulkii dambe oo adultigaan joogaan keensaday kuwaas kusoo dagaalamay dhowr iyo 10 kalena waa la igu daray maadooyinkii iyo wixii maaragtay kale oo aan Soomaaliya kusoo dhigtay iyo la ii qiimeeyay waxa la yiri waa khalaas halka markay joogto waxaan go'aansaday inaysan tii hore igu dhicin oo degdegtii aan ku galay high schoolka kusoo aaday aysan igu dhicin oo jaamacadda ilaa hadaad gasho kan way kasii adkaa doontaa xaaladdu waa sii cuslaa doontaa sanadkii 2014 halkaas bareegan qaatay hore umaana gelin jaamacadda waa la aqbalay jaamacadaha ay aqbalay York University ku jirtay ayada lafteeda waxaa la yiri maadaama markaan aqbalay garay waxaa la yiri maadaama aad Canada 4 sano wax ka yar joogtay ayada dhanba oo wax ku bareyd shahaadadii aan sitaa la yiri haddana waxaa laga rabaa inaad Ingiriis imtixaankiisa inaad gasho ama wax la yiraahdo IELTS ama wax la yiraahdo York Proficiency English Test in la yiraahdo ama IELTS ama wax la yiraahdo TOEFL miya adigu dhowr nooc oo Ingiriis oo kala duwan la yiri mid kamid ah gal University of Toronto iyo Ryerson iyo York University jaamacadood oo Toronto markaas ku taalay umba saddexdiiba imtixaankaas ay soo weydiiyeen waaya waxaan isir high schoolkii waa biseetaa shahaadadii baashana lagula rabin waa maxaa laga daba wareejinayaa hase yeeshee kamaan harino kii yoogaan ballansado oo markaas 2 bas lagu tagay oo xaafadii aan deganahay u dhoweed 2 bas meel ay gaartay iyadoo maaragtay transportation ahaan igu fududeed kii aan balay gariyay imtixaankii waa galay qaybtii hore adigu 2 saac ku dhawaad socay qoraal loo ahaa comprehensive essay la qoray dad badan oo ila mid ah meeshii yimid waa 3 maalin kadib waa la ii soo jawaabay waa baastaa la yiri waxaad u imaaydaa wax la yiraahdo listening iyo speaking waxaa la fiirinayaa how you speak English-ka oo maaragtay erayada aad isticmaalaydo iyo sida aad uga jawaabaydo iyo waxyaalahaas la fiirinayaa waxaa kaloo la fiirinayaa listening-kaaga marka qofku wuxuu kuu sheegaa inaad fahantay iyo TV in lagu shido oo aan ka doodna topic-gii iyo adigu maxaad ka aaminsantahay lagu yiri kaasaa la ii bukumay asagana
isagana waa galay 2 maalin kadib miya isagana email la soo diro la yidhi isagana waa baastay. Markaan 2 sano ku dhawaadan high schoolaadka daba wareega xoogaa systemka waa fahansanahay markaan aadna wax waa u akhriyo buugaagtan aad u akhri jiray. Admissionkii la siiyay, admissionkii markii la siiyay waxaan ogaaday hadduu xataa sanad kadib aan soo laabto inaan intii lay marayn oo la ogyahay qof admissionkan hore u haysto howlahan soo maray. Warqadaydii xaraystay. Markaas waxaan sii aaday college kale oo Hamburg College la yiraahdo 6 bilood haddana oo laakiin wiigi 2 maalin la aadaa Ingiriis bis luqadda Ingiriiska bisaan ka dhigayo jeebkaygaan kala baxay $600 miya iyo $80 waa xasuustaa. Waanu jeebkaygaan la baxay. Anaa waxaan u sii aalamiiteynayaa oon rabaa inaan jaamacadda kusoo fail garoobin diyaar garow xoogan oo kala sii bixinayaa. Xoogaa waxaan cashara ka qaatay ku degdegitaankii aan high schoolka hore ka galay oo imtixaanaadkiisa hore ka galaan xoogaa wax akhrin. Tan 10 jibaar ka adag tahay waa ogaa. Marka halkaasaan uga qaatay break uga qaatay sanadkaas maanan aadin 2014 research-deydii aan sii waday inaan buugaagtii library-ga sii akhristaan sii waday inaan Ingiriiska iska sii dhisaan sii waday. Halkaasaa qaybtii koowaad oo waxbarashada ay noo joogayda. Qaybta labaad waxay nooga bilaabaydaa jaamacaddii heerkii koowaad iyo wixii aan kala kulmay iyo axwaasheedii nooga bilaabaydaa. Way ka sii adkaa doontaa xaalku laakiin la socosho wanaagsan qaybta labaad oo waxbarashadeedii Canada ku saabsan.